Shaqooyinka muhiimka ah ee sida maalinlaha looga dhex shaqeeyo beeraha aseendada ama beeraha ganacsiga caalamiga ah ee mooska waxaa ka mid ah karfangelinta ama bacaynta gacanta mooska. Bacaynta moosku waxay ka mid tahay hababka casriga ah ee loo tabco mooska ganacsiga caalamiga ah si loo tayeeyo wax soo saarka mooska xajmi ahaan, muuqaal ahaan, iyo weliba kor u qaadista xaddiga wax soo saarka beerta. Bacda khafiifka ahi waxay leedahay dhowr faa'iido oo ay ka mid yihiin inay ka difaacdo saamaynta taban ee uu leeyahay cayayaanka, iftiinka shucaaca cadceedda ee guba miraha mooska, dabaylaha xoogga badan, qabowga daran, iyo inay ka saacido in gacanta moosku si habsami ah u kobacdo. Waxaa beerta qayb uga shaqeeya kooxo shaqaale ah oo ka kooban 2 ama 1 qof oo markaas mas'uul looga dhigo inay doortaan gacanta mooska ee la xidhayo una calaamadiyaan maalin kasta. Waxaa hawshaas loo qabtaa iyada oo khabiirka shaqaalaha oo ah mid lagu tababaray hawshaas uu dooranayo geedka mooska ee markaas soo tuuray baasuukaha usbuuca koowaad. Waxaa lagu xirayaa bacda si taxaddar leh, waxaana sidoo kale lagu xirayaa bac midab leh si loola socdo da'da gacanta geedkaas. Tani waxay ka caawinaysaa beeralayda mooska inay ku goostaan xilliga da'da saxda ah oo badanaa ah 10 ilaa 12 toddobaad ka bacdi marka lagu xiro bacda. 1 usbuuc ama 2 ka bacdi marka ay bacda ku xiraan calaamadiyaanna waxaa shaqaaluhu ku soo laabanayaan geedkii oo waxaa laga qabanayaa hawl shaqo oo loo yaqaan shilingur iyo in laga gooyo ubaxa baasuukaha ay beeralaydu u taqaan. Shaqada noocani ahi waxay mooska ka caawinaysaa in faraha mooska aysan ka soo gaarin waxyeello ubaxa ku dul qalalaya iyo in markaas laga jaro baasuukaha marka ay gacantu soo bixiso shukunka ugu dambeeya oo intaas ka bacdi aan lahayn wax faa'iido ah, aanan ahayn inuu nafaqada la qaybsado gacanta mooska. Marka la jaro baasuukaha waxaa loo reebaa 1 far si biyaha iyo nafaqadu u gaarto qaybta hoose ee gacanta mooska. Haraaga baasuukaha la jaray, caleenta iyo weliba ubaxa la shilinguray waxaa looga tegayaa carrada beerta dhexdeeda si nafaqo ugu noqoto carrada. Muddo 3 bil ama 12 usbuuc ka bacdi ayay shaqaaluhu ku laabtaan iyaga oo raacaya kalarka usbuucaas la xiray si ay u gooyaan mooska wixii markaas isku calaamad ahba. Waxaa marka hore la cabbiraa dhumucda mooska iyadoo la isticmaalayo kalibar u khaas ah mooska. Kadib waa la jaraa gacanta mooska iyadoo 1 nin uu caawinayo jaritaanka halka mid kalena uu qaadayo gacanta isagoo adeegsanaya caawiyaha garabka oo ka samaysan walax jilicsan oon waxyeelayn mooska. Marka la goosto gacanta waxaa la jarjaraa geedkii la goostay oo markaas looga tagaa carrada si uu u nafaqeeyo. Moosku wuxuu soo tuuraa ama bixiyaa banooni fara badan oo u baahan in la xakameeyo ama la sameeyo shaqada dhimista. Sida caadiga ah waxaa loo daayaa geedka mooska ee hooyada 1 cunug ama 2 banooni, waxaana la jaraa dhammaan banooniyada yaryar ee ka soo hoos baxa geedka oo uu ku jiro banooni biyoodka oo isagu aan soo saarin gacan xajmi ahaan weyn si markaas looga hortago inay la qaybsadaan geedka nafaqada, hawada iyo iftiinka qorraxda. Midhaha geedka moosku markaas waxay awood u lahaanayaan in ay tayo yeeshaan oo la goosto moos xajmi ahaan iyo muuqaal ahaanba tayadiisu sarreyso.